shir loogu hadlayay xuquuqda aadanaha iyo arrimaha booliska ee qarniga 21aad ayaa lagu qabtay St Thomas University qaybteeda sharciga ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Shirkani ayaa waxaa soo qaban qaabiyay golaha xuquuqda aadanaha ee gobolka Minnesota, waxaana ka qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan. Dhanka Soomaalida waxaa matalaysay una hadashay Fartuun Weli oo ah madaxa iyo aasaasaha hay'adda Isuroon, waxayna sheegtay in midabta koor uu ka jiro gobolka Minnesota. Calaaqaadka ka dhaxeeya booliiska iyo Soomaalida iyo waxaan ka hadlay waxaan bixiyay tusaalo kamid ah midabta koorku sida uu ugu duugan yahay magaaladan aan joogno Minnesota. waxaan kaloo ka hadlay in markii community-ga iyo booliiska ay kulmayaan oo booliiska groupka ka socda ay badiyaa ayaga ay go'aanka soo gaaraan waqtiga ay soo dejistaan ee rabaan inay community-ga u imaato. Community-gana ka soo qaad Soomaalida, haweenka Soomaalida waxay mashquul ku yihiin caruurtii, waxay mashquul ku yihiin shaqadii iyo risiq la shaqayn lahaa. Marka waxaa u malaysaa xoogaa inay jirto isfahan la'aan oo booliiskana hadhow yiraahdaan war Somali community markaan u tagnay kulamadii way noola imaan waayeen oo ma rabaa inay nala shaqeeyaan. waxaan kaloo ka hadlay inay Soomaalida hadda magaaladan booliis badan oo Soomaaliya ay ka shaqeeyaan, laakiin booliiska ka shaqeeya laftirkooda midabta koor xun uu ku socdo oo in loo baahan yahay in conversation cadaalada in Soomaalida community-ga iyo booliiska uu ka dhex dhaco si loo joojiyo midabta koorkan ku duugan wadankan. dhanka kale Cabdiqaadir Cumar Yuusuf oo xubin ka ah hay'adda Amnesty International oo isna ka qayb galay shirkani ayaa waxa uu Soomaalida ugu baaqay haddii ay la kulmaan arrimo la xiriira midabta koor ay muhiim tahay in ay la soo xiriiraan hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha. marka waxaan anagana noo wanaagsan maadaama aan ka nimay wadan burbursan oo baaba'san oo amnigii iyo nabadii xagga ay naga burbursan tahay, wadankan aan joognana inaan ahaano dad la shaqeeya hay'adaha amniga mar walbana u taagan inaan ayagana xuquuqdoodii lagu xadgudbin. qof walbana wuxuu xaq u leeyahay haddii xaq gudub uu ku yimaado hay'adaha xuquuqda aadanaha inuu la soo xiriiro ama hay'adaha amniga madaxdooda sare si ay maartay u helaan maxay ahayd discussion ama wada hadal gaar ah. Jason Sole oo madax ka ah hay'adda u dooda xuquuqda dadka madow ayaa isna soo bandhigay sawirro iyo muuqaallo lagu dhibaateeyay dadka madow, isagoo codsaday in booliska Mareykanka la siiyo tababar la xiriira arrimaha bini'aadanimada. What I talked about is just the history of policing, how abusive they are, how they are urban terrorists, and really just looking at the structure from top to bottom. And I just constantly stated, if you allow one officer to be terrible within the department, you got to question the whole department. So that was really my message today. Ilaalinta xaqa lagu difaacayo xuquuqda aadanaha ayaa maanta ah arrin sida loo daneeyo ay ku sii kordhayso dunida oo dhan. wuxuuna dalkani Mareykanka ka mid yahay wadamada horumarka ka sameeyay ilaalinta xuquuqda aadanaha. haddana waxaa jira xadgudubyo ay booliska Mareykanka u geysanayaan dadka laga tirada badan yahay ee ku nool dalkani Mareykanka. Maxamed Muuse Nuur, Deeq Darajo, Universal TV, Minneapolis.